wararka ka imaanaya deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaasatan gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danaba oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah oo dhanka iyo cirka ka taageerayay isla markaana duqeymo kala duwan ka fuliyay deegaanka lagu magacaabo Bulofly ee gobolka Bay ayaa waxa ay ku guuleysteen ciidamadu in ay xalay ay fuliyaan howlgal gaar ah oo si heer sare ah loo qorsheeyay sida lagu yiri bayaan ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ka dhacay deegaanka Bulofly ee gobolka Bay oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee kooxda Al-Shabaab ay halkaasi ku lahayeen bayaanka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri ciidamada ayaa beegsaday xarumo ay deganaayeen horjoogayaal ka tirsanaa qawaariijta waxaana inta uu howlgalku socday lagu dilay in ka badan 20 xubnood oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa ayaa la sii raaciyay bayaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay sidoo kale ciidamada ayaa burburiyay idaacad ku hadasha afka qawaariijta oo ku taala deegaankaasi ayaa la sii raaciyay hadalka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka soo saartay dagaalka ka dhacay deegaanka Bulofly ee gobolka Bay isla markaana ay sheegtay dawladda dhexe ee Soomaaliya inay ku dileen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab howlgalka oo ku soo dhamaaday si guul ah ayaa faahfaahin dheeraad ah laga siin doonaa dhammaan warbaahinta ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale sheegtay in dadweynaha lala wadaagi doono xogaha rasmiga ah ee howlgalka iyo qasaaraha la gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab inta uu dhan yahay howlgalkani ayaa imaanaya iyadoo 2 maalmood ka hor gobolka Jubbada Dhexe lagu beegsaday qaar ka mid ah horjoogayaashii ugu sareeyay ee kooxda Al-Shabaab isla markaana shalay lagu jabiyay qawaariijta duulaan ay ku soo qaadeen deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sidoo kale lagu daray bayaanka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana lagu daabacay mareegaha kala gedisan ee ku hadla afka dawladda dhexe ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay gobolada dalka ayaa waxa ka soconaya dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab iyadoona ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dagaalka xalay ay ku qaadeen deegaanka Bulofly ee gobolka Bay ee guulo waaweyn ay ka sheegteen iyadoo la arkayay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya muuqaalo laga soo duubay oo ay ku muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin jabka ay gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo sidoo kale ka hadashay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka dhacay deegaanka Bulofly ayaa waxa ay u mahad celisay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee howlgalkaasi fuliyay isla markaana guusha ka keenay sidoo kale saaxiibada caalamiga ah ee dhanka iyo hawada ka taageerayay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya suurageliyayna in duqeymo dhanka iyo hawada ah ay ku sii daayaan saldhigyada ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab taasina ay u sahashay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya inay gudaha ay u galaan deegaankaasi isla markaana gabi ahaanba ay la wareegaan saldhigii kooxda Al-Shabaab ay ku lahayeen Bulofly oo ka tirsan gobolka Bay